aynu kasii soconno maxaynu ugu dooranay baraha bulshada in wax lagu barto marka leeyahay baraha bulshada ma waxaynu weynay wax kale wax lagu barto maxaa inoo keenay dad badan waxay isweydiin karaan war yaadaheen war maxaa iska galay baraha bulshada inuu naqaan Facebook uu kamid yahay iyo WhatsApp-ka iyo Instagram-ka iyo waxyaalaha la midka ah iyo waxbarashadii weyneyd ee dadaalka iyo juhdiga u baahnayd miyaanay laba shay iska hor imanayaan dad fara badan baa sidaa u fikiraya doogo may iska hor iman maayaan wana la iswaafajin karaa laba arrin oo kala duwan in meel la isugu keeno oo la iswaafajiyana arrinta waxa loo yaqaan hal abuur hadda doonayso inaad baratid ama waxa loo yaqaan creativity waa laba shay oo aan islahayn in meel la isugu keeno taas hal abuur loo yaqaan maxaynu hadaba ugu dooranay baraha bulshada balayna midmid taabano kow waa ay fududahay isticmaalkeedu oo qof maanta Facebook ama WhatsApp aan garanayn sida loo isticmaalo ama ba Instagram waa uu yar yahay way fududahay isticmaalkeedu aad iyo aad ayay u fududahay uma baahna steps iyo talaabooyin fara badan oo qofka ku adkaanaya ma jiraan faa'iidada labaad in baraha bulshada u dooranay in wax lagu barto aqoonta lagu gudbiyo waxa ay tahay waa arrin aad loo isticmaalo aad baa loo isticmaala odayaashii baa isticmaalaya islaamihii baa isticmaalaya yaryarkii baa isticmaalaya dhalinyarta hadalkeeda badda waa shay aad iyo aad loo isticmaalo taas keenaysa markaa in dadka halkoodii loogu tago wax lagu baro faa'iido saddexaad baa iman karta oo waxa ku waadigii caana faa'iido saddexaad baa iman karta waxa loogu isticmaali karaa waxa aad ku isticmaali kartaa wax kasta sida mobile laptop tabku waa mobilka weyn ayaa tab loo yaqaanaa iyo wixii lamida inta baad ku isticmaali kartaa bimacnaa qof oran kara ma jiro wallahi anigu laptop ma sito oo iyo computer gurigay ma yaalo oo waxba kuma dhigi karo may saamacanhu maaha war hadaad mobile sidato waxbaad ku bari kartaa hadaad tab sidatid waxbaad ku bari kartaa laptop iyo desktop iyo computerradu waaweynana hadalkooda daa marka waxaad ku gudbin kartaa aqoontaada waxa ugu yar oo mobile ah ee haysatid waxa ujeedo kale iyo faa'iido kale aynu ku baranayno baraha bulshada waxbarashadu waxay tahay dhalinyartu aad ayay u xiisaysaa barahan aad baa loo xiiseeyaa marka wuxuu qofku xiiseynayana waa muhiim inaad uga faa'iidaysataa oo aad u soo dhexmarisid wixii muhiimka ahaa inuu ogaado oo aqoontii waa arrin muhiima marka wixii la xiiseynayay oo ah barayay bulshada inaad qofkii aad u soo dhexmariso waxa weeye meelihii uu xiiseynayay arrin aad iyo aad u muhiima weeye faa'iidooyinka waxa kamid ah waxa aynu ku jirnaa casrigii internetka waxaynu ku jirnaa waqtigii internetka waxaynu ka hadlaynaa waqtigii internetka baahi walba la isku dayayay inuu qabto hadday tahay dukaameysiga online baa jira shopping wax loo yaqaan waa dukaameysiga online-ka ah hadday tahay waxbarasho waxa jira online education habkii waxbarashada online-ka ahayd hadday wax walba waxa la isku dayay inuu computerka iyo internetku ay qabtaan marka inaga maxay dib inoo dhigaya miyaanay ahayn inaynu ka faa'iidaysano casriga internetkaynu galna weliba aan kugu daro waqtigan haddaynu ku jirnay dhibaatooyinka adduunka ay saaqeen sida xanuunka COVID-19 oo waqtigii waxa casharka la duubay oo hadda ah xanuunka adduunka haysta aad iyo aad bay dadka ugu baahdeen aqoontii waana muhiim in loo dhexmariyo baraha bulshada